sida gudoomiyaha uu noo sheegay ama ajandaha idinka hadda haysatiin xildhibaanada sharafta leh maantayto halkan waxaan isugu nimid ajandaha waa haysataan gudoomiyahana uu noo dulmaray guddiga anshaxa wuxuu soo jeedinayaa labadii xildhibaan oo ka hadlay miidiyaha anshax xumida iyo waxyaabaha aan jirin ku sheegay miidiyaha ama dadka u sheegay in ay go'aan ka gaaraan guddiga anshaxa baarlamaanka sharafta lehna loo soo gudbiyo sidaana macnaha lagu abaalmariyo wixii oo ay muteysteen insha Allah wixii qoraal ah waxaan noo akhrinayaa xildhibaan geelle insha Allah xildhibaan geelle ku soo dhawow qodobadii aan isku soo raacnay ku-xigeenada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland guud ahaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib annagu waxaan ahayn guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxaan naloo xil saaray inaan tala ka keenno go'aanna ka keenno waxyaabihii dhawaanahanba ka dhacayay meediyaha caalamka annagu ma aanan keenin intaan waxaynan ogeyn ma wadno waxaynan intaan ogeyn annagu waxaan wadnaa oon kas u beddelnay qoraal wixii aad wada maqlayseen oo aad wada arkayseen oo jariimada ahaa nin bili aadana oo islaama oo xishoonayo ma samayn karo waxa meediyaha ka muuqday waad arkayseen walaalkeen maxamed cali yuusuf iyo walaalkeen cabdiqaadir annagu waa jecelnahay iyagaa inaga tegey maxaa yeelay inteenaan hadda maanta waa wada joognaa ma filayo wax gaara oo shakhsiyan oo maxamed cali yuusuf ama cabdiqaadir loo geystay ama dhibaato ama xariga aragti waa meesheeda mudanayaal mar weyn annagu markii ay soo baxeen howlahaas hawshanadana ay ahayd in waxyaabaha dheeraadka ee baarlamaanka ka dhex dhaca ama ka dhex jira oo quseeya nidaamka iyo habsami u socodka howlaha baarlamaanka ee guddigii ee qaabilsanaa guddoonkii baarlamaanka markii aan is aragnay waxaana loo xil saaray arrintaas inaan ka keenno go'aan ka keenno waxaana soo jeedinaynaa sidan soo socota bismillaahi raxmaani raxiim dowlad goboleedka Jubbaland ku gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ka guddiga anshaxa golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ujeedo soo jeedin xilka qaadis xildhibaan cabdiqaadir ibraahim cali mudane gudoomiye mudanayaal waxaan halkaan idinku soo gudbinaynaa go'aanka guddiga anshaxa ee ku saabsan xilka qaadista xildhibaan cabdiqaadir ibraahim cali oo horay ugu tirsanaa golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo caddaystay si maqal iyo muuqaal ah inuu ka baxay
inuu ka baxay xildhibaanadii dowlad goboleedka Jubbaland maxaa yeelay waad arkayseen YouTube-ku ku jira walaalkeen isagaa cadaystay inuu ka baxay inuusan ka mid ahaan karin baarlamaanka faashilka ah dowladda faashilka ah nidaamka faashilka ah mar hadduu isagu cadaystay inuu ka baxay annagu intuu sheegay baan soo qoray inuu ka baxay xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland isagoo isticmaalay warbaahinta maxalliga ah iyo tan dibadda mudana guddoomiye mudanayaal waxaan halkan ku soo gudbinaynaa sababihii iyo dembiyadii uu ku waayey xildhibaankaas xildhibaannimadiisa iyo eedeymaha cad ee loo hayo mudane guddoomiye mudanaha kor ku xusan xildhibaanka wuxuu si ku talagal ah ugu xadgudbay qodobka 30aad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland farqadiisa 3aad 4aad qodobkaas oo tilmaamayo habka lagu lumin karo xilka xildhibaannimo mudane guddoomiye mudanayaal annagoo tix raacayna qodobka 59aad dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya farqadiisa ba oo ka hadlaysa xilgudasho la'aanta sidoo kale qodobka 7aad ee xerhoosaadka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland farqadiisa 5aad oo sheegaysa sababaha lagu lumin karo xubinimada golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ka hadlaysa ku xadgudubka diinta islaamka waad maqlayseen walaalkeen cabdiqaadir waad maqlayseen diinta islaamka in dad islaam oo meel wada degan la isku abaabulo la isku dilo dhiig ku daato waxay ka qabto culimada wada tihiin idinkaa sheegaya waxaa weeyaan waxaan maraayay xildhibaan cabdiqaadir wuxuu abaabulay kacdoon dadweyne ama shacab uuna ku talagalay inuu ku daato dhiig fara badan oo dhexmara shacabka reer Jubbaland iyo dowladooda isagoo isticmaalaya warbaahinta maxalliga ah iyo tan dibaddaba kuna talagalay inuu u shaqeeyo gacmo shisheeye oo ka xun wadajirka midnimada horumarka reer Jubbaland mudana guddoomiye mudanayaal waxaan aragnay qodobka 24aad farqadiisa 11aad ee xeer hoosaadka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ka hadlaya aflagaadaynta madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland goliyaasha dowladda iyo shacabka reer Jubbaland oo sheegaya xildhibaanku hadduu isticmaalo aflagaado noocaas ah in uu weyn karo xilka xildhibaannimo hadduu kaga hadlo meel ka baxsan xarunta golaha baarlamaanka waad ogtihiin dastuurkeennu wuxuu qorayaa xildhibaanku haddii golaha baarlamaanka uu ka hadlo fikirkiisa laguma cinqaabi karo laguma xiri karo laguma ganaaxi karo laakiin haddii meel ka baxsan xarunta baarlamaanka laga sameeyo abaabul arrintan waxay la xiriirtaa berigii aanu dowladda ahayn qodobkii 70 iyo 71 iyo 208 iyo
waa qaran dumis marka qaran dumis tafaasiil uma baahna meel ka baxsan xarunta golaha baarlamaanka waxaa sidoo kale noo caddaatay in xildhibaanku meeshii uu ka shaqayn lahaa danaha reer Jubbaland una gudan lahaa waajibaadkiisa dastuuriga ah uu ku bedelay burburinta dawladdii uu ka tirsanaa iyo kala qaybinta shacabka reer Jubbaland ee walaalaha ah isagoo isticmaalaya warbaahinta muxalliga ah iyo tan dibaddaba sidoo kale inuu ku kacay kala qaybin iyo iska horkeenid dhalin kara kala tag iyo jahawareer uu ka dhex abuuray beeshii uu ka tirsanaa dhexdeeda sidoo kale isagoo lagu caddeeyey inuu gurigiisa ku qabtay shirar beeleedyo looga soo horjeedo dowlad goboleedka Jubbaland looguna tala galay in lagu daadiyo dhiig aad u tiro badan oo ka dhex daata shacabka reer Jubbaland laguna burburiyo midnimadooda iyo wadajirkooda sidaas darteed mudane guddoomiye mudanayaal kadib markii aan samaynay dabagal iyo baaris dheer markii aan helnay go'aankii beeshii uu ka soo jeedo xildhibaan Cabduqaadir boqoradoodii nabadoonadoodii siyaasiintoodii iyo dhammaan waxgaradka beesha oo aan ka helnay qoraal caddaynaya oo ay ku sheegeen inuusan mateli karin ummadda reer Jubbaland iyo beeshiisaba xildhibaan Cabduqaadir Ibraahim Cali oo ku guul daraystay matalaadda iyo mas'uuliyadda shacabka reer Jubbaland iyo kan beeshiisaba oo ay ku codsanayaan in ay kala noqdeen kalsoonidii ay markii hore siiyeen ayaa ay ku codsanayaan in ay ku caddaynayaan xildhibaan Cabduqaadir Ibraahim Cali sidaa darteed waxaan guddoonka golaha baarlamaanka iyo baarlamaanka ka codsanaynaa inay waafaqaan go'aanka guddiga anshaxa oo xilka ka qaaday xildhibaan Cabduqaadir Ibraahim Cali eedeeyey xildhibaan Maxamed Cali Yuusuf oo loo xil saaray inay soo baaraan talana ka keenaan go'aanna ka soo gaaraan guddiga anshaxa baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ka koobnaa 6 xubnood oo uu ka maqan yahay guddoomiyihii guddiga intii kalena ay xaadir yihiin ما يكيال واحد سا إلهي يسي وايه مدن قدومي مدن يال وحان هالكان إذن كسو قدبنينا وحيابيه نوغو سو بحي بارستي آنو كسو ميني eedayntii eedaymihii loo soo jeediyey xildhibaanka waxaana ka soo jeedinaynaa sidan soo socota kow xildhibaanku wuxuu si ku talagal ah uga xadgudbay qodobka 30aad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland farqadihiisa 3 iyo 4 qodobkaas oo tilmaamaya habka lagu lumin karo xilka xildhibaannimada waxaa sidoo kale
xildhibaanku si ku talagal ah ugu xadgudbay qodobka 16aad ee xeer hoosaadka golaha baarlamaanka oo sheegayo haddii xildhibaanku uu ka maqnaado 2 kal fadhi oo isku xiga sabab la'aan inuu luminayo xilkiisa ayaa waxaa noo caddaatay in xildhibaanku 2dii kal fadhi ee u dambeysay ee la soo dhaafay uu ka soo xaadiray muddo 5 maalmood ah oo teelteel ah mudana guddoomiye mudanayaal waxaa sidoo kale baaris ku samaynay dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya qodobka 59aad xarafkiisa ba farqadiisa ba oo dhahaysa xilgudasho la'aan joogto ah sidoo kale qodobka 7aad ee xeer hoosaadka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland farqadiisa 5aad ee sheegaysa sababaha lumin kara xubinimada golaha shacabka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo dhahaysa inuu ku xadgudbay diinta islaamka dastuurka iyo xeer hoosaadka walaalayaal waad ogtiin walaalaheen midna noomayna reebin waxa diinta islaamka ay raalli ka ahayna meediyahay keeneen wixii dastuurka ku xumaana meediyahay keeneen wixii xeer hoosaadka ku xumaana meediyahay keeneen innagaana wada maqlaynay marka intaas waa intaas iyo xeer hoosaadka golaha shacabka ee Jubbaland isagoo abaabulay kacdoon shacab oo uu ku talagalay inuu daato dhiig badan oo ay shacabka iyo dowladda dhexmara aanka guddiga anshaxa aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سمع أجندة ورطة إنا أنصحصنه قعدت ورطة أجندة هلو تاغو لما أريوا مركة حسن لا يشكل وافرون هاي أجندة بيجي السلام عليكم شرفت لوالد جدا وحانا هيدا إسلاما إسلامكو فوضلو وحرمي إسلامكو وحو أمرايا مدنمو يوسف قد كقلي ومضى الحين هوية إيو بارلمانكا إيو حلوان عبد القادر إبراهيم علي وأساقنا وقضى مري إن أين كثير سنة ساكدا لقب الله وحلوان هذا جبلين قعدها ويتك قعدها للتاغو اوكي ما تسكي فرفتني اللي